kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawan doontaana waxa ugu waaweyn sirdoonka Somaliland oo la sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno jaajuusin aha talaabooyin waaweyn xoga sirdoon oo la helay raqaaqa culus ee hadda socda ciidamada Somaliland oo sheegay inay soo bandhigayaan sirdoonka talaabooyinka ay qaadeen iyo sidoo kale xubnaha la soo qabtay shacabka Somaliland oo amar culus lagu soo rogay xogihii ugu dambeeyay jaajuusinta la qabtay iyo meelaha laga qabtay macluumaadka ku geedaaman wararkii ugu dambeeyay talaabooyinkaasi la qaaday iyo warar kale xoga kale ay daawan doontaan balse marka hore si aan faafaynta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garaysid like saartid meel fog gaarsi qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adigoo rukumanaya barteena Race TV program balka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb waagaag aynu ku bilowno sirdoonka Somaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen howlgallo waaweyn oo aad u culus waxaana markani ay qaadeen mid kamid ah qorshayaashoodii ugu waaweynaa ee howlgallada iyaga oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno jaajuusin ah walow aan la cadeynin xubnahaasi waxa ay qabanayeen iyo goobaha laga soo qabtay ee markaasi marka hore ay ka yimaadeen balse kaliya waxay ku soo koobeen inay ahaayeen jaajuusin u shaqeynayay dawladaha Turkiga Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti waxaana gacanta ku dhigay ciidamada sirdoonka waliba gaar ahaan kuwa xuuraanka ee xogaha basaasnimo raadiya iyaga oo helay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee dadkaasi kadibna waxay ku dhawaaqeen go'aanka soo qabashadooda oo lagu tilmaamay hadda inuu yahay kii ugu weynaa ee loo qaado arrinkan lagaga dhabeeyay waxa xogaha la helayo ay muujinayaan in si degdeg ah markaasi arrinkan looga gudbi doono marxaladihii ugu dambeeyay ee talaabooyinkan iyo dhaqdhaqaaqyadan hadda socda waxaana tani ay qayb ka tahay howlgallada sida gaarka ah ay u qaadayaan dhinacyadan kala duwan talaabooyinkii ugu dambeeyana ay abuureen xogaha sida gaarka ah loo muujinayo ayaa tibaaxaya in Somaliland markani ay sirdoonkeedu bilaabeen qaadista talaabooyinkii ugu dambeeyay abaabul xoogan oo socday iyo in ay markaasi si adag uga jawaabayaan markani dhaqdhaqaaqyadaasi kala duwan ee la xiriirta in laga hortago in ay jaajuusin Somaliland dhexdeeda ka sameeyaan xog gudbin iyo meelaha fudud ee laga soo gali karo xukuumadda ama dagaal diblomaasiyadeed ha noqoto ama dagaal kale oo lagu soo qaado intaba balse xogaha la helayo ayaa muujinaya dhaqdhaqaaqyadani inay gaareen heerkii ugu sareeyay loogana jawaabay xaaladahan kala duwan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee la helay qorshaha dheeraadka ah ayaana muujinaya in ay tani tahay qayb kamid ah fursadaha waaweyn ee ciidanka sirdoonka Somaliland ay ku heleen xubnaha lagu tilmaamay inay jaajuusinta ahaayeen ee gacanta lagu soo dhigay qaarkood la sheegayna inay gudbinayeen xogaha lisa oo qaran dumisnimo ay ku tilmaameen amaba ay ugu weyneed xogaha sida gaarka ah loo helay marka laga soo tago dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxa ay muujinayeen in ay tahay tani mid kamid ah talaabooyinkii ugu waaweynaa oo aad u xoojiyay dhacdooyinka kala duwan haddana waxay markaasi talaabadani qayb ka tahay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ku dhawaaqista dhinacyadani ay sida gaarka ah markaasi u muujinayeen xogaha la helayo sidoo kale waxa ay muujinayaan in tani ay qayb weyn ka tahay dhacdooyinka kala duwan iyo talaabooyinka sida gaarka ah markaasi loo qaadayo iyada oo ay hadda muujinayaan dhacdooyinka sida guud markaasi ee loo wajihi doono iyo xaaladda ku gadaaman dhaqdhaqaaqyadan kala duwan inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ama ugu cusub ee loogaga jawaabayo marxaladan guud macluumaadka aynu helnay ayaana muujinaya in ay Somaliland markani ay qaadi doonto talaabadii ugu weyneed ee la xiriirta in markaasi la soo afjarayo ay markaasi talaabadan aad u sii xoojinaysa sidoo kalena ay u muuqataaba in ay tahay fursad kamid ah fursadihii ugu waaweynaa ee ciidanka Somaliland markan ay ku soo afjarayaan xubnaha gudaha Somaliland laga dhex raadinayay ama baadi goobka xoogan looga jiray iyada oo la arkay in ay tani qayb weyn ka tahay talaabooyinkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa oo aad ay u xoojiyeen in
ay markaasi si adag uga jawaabaan marxaladaha kala duwan ee lagu jiro. Sirdoonka ayaa si xoogan u shaqeynaya, waxaana dhowaan tallaabooyinka sirdoonka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooduba faray inay xoojiyaan. Tallaabadani aadka u sii xoojisay iyo dhaqdhaqaaqyadan kala duwanba inay markaasi sii xoojiyeen tallaabooyinka ugu waaweynaa. Haddana waxa ay aad u sii dardargelinaysaa qorshaha sirdoon ee Israa'iil ama Yahuuddu deegaanada Somaliland. Tan iyo markii Israa'iil ay ku lug yeelatay Somaliland, waxaa aad u kordhay dhaqdhaqaaqyada kala duwan. Tallaabooyinkii ugu dambeeyeyna waxa ay abuureen inay sare u sii kaceen dhowrkan tallaabo, waxaana ay si adag markaan uga jawaabaysaa xaaladii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqan sida guud markaasi arrinkan ugu saabsan, iyada oo la helayo wararkii ugu dambeeyey aadna u sii xoojinaya dhacdooyinkii kala duwanaa. Tallaabooyinkan hadda sii xoojinaya in loo qaadayo dhaqdhaqaaqan aadka u xoogan sida adag markaasi uga jawaabaya xaaladihii ugu dambeeyey ee tallaabooyinka sirdoon ama la qaaday, iyada oo la arkayo in ay tani qayb weyn ka tahay. Waxaana markaasi hadda ay muujinayaan tallaabadani in ay sii dardargelinayso qorshihii ugu weynaa ee dhacdadan aadka u xoogan ama tallaabooyinkan sii xoojiyey, dardargeliyana sidoo kale dhaqdhaqaaqyadan kala duwan. Macluumaadka la helayo waxa ay markaasi hadda xoojinayaan in ay tani sidoo kale qayb weyn ku yeelan doonto dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ama tallaabadii ugu xooganeed, iyada oo loo qaadi doono hadda si dardar leh qorshihii ugu dambeeyey ee kama dambaysta ahaa. Waxaana sidoo kale ay sii xoojin doontaa go-aanada kama dambaysta ah ee tallaabadan loo qaadayo, fursadaha waaweyn ee hadda la helayo iyo wararka la xiriira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee aadka u sii xoojiyey tallaabooyinka waaweyn ee loo qaadayo in si adag markani sirdoonku ay u shaqeynayaan. Ciro ayaa tan iyo markii Israa'iil uu la gaaray heshiiska markaasi aqoonsiga la xiriira iyo wax isdhaafsiga, ayaa haddana waxa ay markaasi abuurtay in ay sare u sii qaadeen xaaladihii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ama xaaladahan kala duwan ee la qaaday. Waana sidoo kale tan abuurtay in markaasi tallaabooyinkani ay sii kordheen. Macluumaadka la helayo sidoo kale waxay muujinayaan in sirdoonka Somaliland ay qaadi doonaan tallaabooyinkii ugu waaweynaa. Tan iyo markii ay soo bandhigeenna aad u sii xoojisay tallaabadan iyo go-aanada kale ee la qaaday. Waxaana sidoo kale hadda macluumaadka aynu helayno ay si gaar ah markan u dul istaagayaan in sirdoonku ay gacanta ku hayaan ku dhowaad 10 ruux oo ay markaasi ku tilmaameen inay ahaayeen basaasiin ama jaajuusiin u shaqeynayay dowlado kale, kuwaasi oo ay markaa u gacan gelin doonaan hadda ciidanka booliiska si markaasi loo gudbiyo heerarka markaasi maxkamadaha kala duwan. Waxaana loo qaadi doonaa hadda soo afjaristii ugu dambeysay iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa. Macluumaadka hadda la helayo ayaana muujinaya in ay tani qayb weyn ku yeelan doonto dhaqdhaqaaqyadan kala duwan. Xogaha sida gaarka u soo ifbaxaya ayaana sare u sii qaadaya tallaabooyinka ciidanka Somaliland hadda ay qaadayaan. Waxaana si guud heegan loo geliyey ciidamadii Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan durba bilaabay tallaabooyin military marka laga tago kuwa sirdoonka oo iyagu dhankooda aad u sii xoojiyey tallaabooyinkooda. Waxaa dhinaca kale kuwa markaasi militariga, booliiska iyo qeybaha kaleba iyana ay wadaan howlgaladii ugu dambeeyey iyo qorshihii ugu xooganaa ee arrinkan la xiriira, iyaga oo soo afjaraya dhaqdhaqaaq kasta oo lagu tilmaami karo inuu yahay mid xoojinaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka taagan iyo dhaqdhaqaaqyadan kala duwan. Sirdoonka Somaliland ayaana si weyn markan u shaqeynaya, iyaga oo gacanta ku soo dhigay xubno ay sheegeen inay yihiin jaajuusiin tallaabooyinkii ugu dambeeyna u qaaday soo afjarista qorshaha ugu dambeeya ee dhacdooyinkan la xiriira. Tallaabadanna sida gaarka ah markaasi ugu gadaaman macluumaadka la helay ayaana muujinaya inay sii xoogeysteen tallaabooyinkii ugu dambeeyey, sarena loo qaaday xogaha sirdoon iyo raadinta dhaqdhaqaaqyada kala duwan, iyada oo Ciro ay markani xukuumaddiisu xooga saarayso soo afjaristii ugu dambeysay qorshayaasha halista ah ee ku gadaaman iyo cabsida weliba markan laga qabo in ay halistu ay sii kororto. Tallaabooyinkooduna ay markaasi gaareen heerarkii ugu sarreeyay. Cabsida laga qabo dhaqdhaqaaqyadan kala duwan
iyo in ay markaan sii xoogeystaan tallaabooyinka halista badan abuuray ee deegaanadaasi qaarkood ka taagan. si gaarana waxaa hadda usii xoogeysanaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee waaweyn ee arrimahan la xiriira, iyada oo sare loo qaaday tallaabooyinkan kala duwan iyo macluumaadka arrimahan la xiriira. haddana waxaa si gaar ah markaan dusha markaasi ee u rogonaya ciidamada sirdoonka militariga iyo booliiska oo tallaabooyin waaweyn oo ciidan durbaba bilaabay, iyada oo lasoo afjarayo tallaabooyinkan, iyadoo weliba shacabka xataa loogu booriyey inay la shaqeeyaan ciidamada si loo helo tallaabadani loogana guuleysto qorshihii ugu dambeeyey ee halista ku ahaa Somaliland. xogaha hadda la helayo ayaana muujinaya sidoo kale hadda inay sii xoogeysteen dhaqdhaqaaqyadan kala duwan iyo macluumaadkan aadka u xoogan, iyo weliba in si adag loogaga jawaabayo xaaladii ugu dambeysay ee ka abuurantay go-aankan la gaaray iyo sidoo kale gunaanudka go-aanka ugu dambeeya ee ciidanka Somaliland. xogaha sidoo kale aynu helnay ayaa muujinayo intaasi ku sii darayay in maalmihii lasoo dhaafay ay si buuxda u shaqeynayeen ciidanku, si joogto ahna ay markaasi u gudagaleen marxaladihii ugu dambeeyey ama tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee la xiriira xaaladan kala duwan iyo dhaqdhaqaaqan markaasi lagu xoojinayo tallaabadii ugu weyneed ee arrinkan sida gaarka ah markaasi usii dardargelinaysay. qorshaha la xiriirta tallaabooyinkan ayaana muujinaya in ay markaasi hadda xoogeysteen dhacdooyinkii ugu dambeeyey, tallaabooyinkii ugu waaweynaa, iyada oo weliba la gaaray heerkii ugu sarreeyey ee tallaabadani lagu soo afjarayo. macluumaadka aynu helnay ayaa intaasi ku sii daraya inay xoogeysteen howlgalladani, sidoo kalena ay ciidanka Somaliland markan heegan buuxa ugu jiraan xaalad kasta oo soo kororta, dhaqdhaqaaqyadan kala duwanna markaasi looga hortegayo, iyada oo weliba la muujinayo inay yihiin tallaabooyinkani kuwii ugu waaweynaa ka hortegista qorshaha halista ah iyo dhaqdhaqaaqyadan kala duwan, waxaana ay sare usii qaadeen tallaabooyinkan sidii ay markaasi uga jawaabi lahaayeen xaaladda guud ee degdega ah iyo kama dambaysta qorshaha ugu dambeeya ee ka hortegista arrimahan, iyo weliba inay markaasi si adag uga jawaabayaan xaaladii ugu dambeysay ee la xiriirta arrinkan hadda taagan, iyo in ay markaasi tallaabooyinkani sii xoogeysteen dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ee markaasi la xiriira wararka kasoo ifbaxaya tallaabooyinka Somaliland ay sida adag markan uga jawaabayso. weliba xaaladii ugu dambeysay ee hadda xoga laga helay waxa ay muujinayaan inay sare usii qaadeen tallaabooyinkan degdega ah ee la xiriira dhacdooyinkan kala duwan iyo xogaha arrimahan sida gaarka ugu gadaaman ee la filan karo inay sii xoogeystaan ama dhaqdhaqaaqyadani ay ka dhigaan kuwo sii xoojiya tallaabooyinka ugu dambeeya ee Somaliland ay ku sii xoojinayaan dhacdooyinka kala duwan ee hadda la qaadayo, qorshihii ugu dambeeyey, howlgalladan waaweyn ee socda, tallaabooyinkan sida gaarka ah lagu soo afjarayo iyo macluumaadka la xiriira kama dambaysta go-aanka ugu dambeeya ee lagu gaarayo arrinkan, iyada oo markaasi ay xoogeysteen tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo qorshayaashii ugu waaweynaa oo ay si adag uga jawaabayaan xaaladda kama dambaysta ah ee go-aankan sida gaarka ah markaasi ula xiriirta, ayna ku dhawaaqayaan dhinacyadani go-aankii ugu dambeeyey. walow ay hadda Somaliland wajahayso marxalad ka duwan tii hore, haddana waxaa xogaha la helayo ay muujinayaan inay kordheen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa oo ay si gaara markaasi diiradda u saarayaan dhinacyadani, waxaana heegan buuxa la geliyey ciidamada Somaliland oo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay hadda wada, qorshahana ay ku darsadeen inay qaadaan tallaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa ee lagu soo afjarayo howlgalkii ugu weynaa ee loo qaado sidii lagu soo gabagabeyn lahaa tallaabooyinkan military iyo dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ee la qaadayo, iyada oo weliba ay hadda u muuqato Somaliland mid sii xoojinaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa oo ay ka dhigan tahay guud ahaanba mid si degdega uga jawaabaysa xaaladihii ugu dambeeyey ee ciidan iyo go-aanka kama dambaysta ah ee dhaqdhaqaaqyadan la xiriira. balse xogaha la helayo waxay muujinayaan in ay tahay isla diyaaradii hore u keentay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil oo laga lahaa dalka Romania, waxaana markaasi ay mar kale muujinaysaa in dhaqdhaqaaqyadaasi ay sii xoogeysanayaan tallaabooyinkoodii ugu dambeeyana ay weliba sii socdaan.